inaan gacmaha ku suulino haddaan awoodin inaan carabka ku suulino haddaan awoodinna inaan ku suulo qalbigana ka nacno saas daraaddeed tiktok la yidhaahdo oo xooha cawraadkooda soo dhigaayo oo qaarkood waxaa haddaa arka is leedahay maba ku dhaqmaan miya shareecada islaamka ma ka taga wiilkaan warwaan islaamiya meesha agala socotaan waa youtube-ka ka cadin waxaan isku dayaa inaan videoga youtube-ka geliyo waxaan arkaa waa yar askari ah wadaniga hubeysan baa ugu qoran wuxuu soo diraysay xadiiska maaqayna aragtaan xadiiskan la dhaho qofku waxbuu suulinaya inaan gacmaha ku suulino haddaan awoodin inaan carabka ku suulino haddaan awoodinna horta xadiiskan sheekada carabta oo xadiiskan ah oo qofku uu leeyahay waxbaa la suulinayaa waa waxa ugu sharta badan oo Soomaaliya ka jira xadiiskan ama sheeka carbeedkan laislama fahmin dadku islama fahmin qaar bas bay u qaateen laakiin sida ugu badan oo dadku ay u qaateen waxa weeye dhalinyaradu iyo culimada iyo kulli fawaaxishtan la suulinayo waxa weeye ma ahan gaajada ma ahan cudurrada foolxumadu waa in dumarka inay caburiyaan waa in gabadhu u labisataa si uu ninku rabo ninka waa inay farxad raali gelisaa gabar kasta bal ninkaan maanuu qabaa ma walaalkayba ma aabahayba kani daawani maxaa farxadooda sidee qof ugu ilaalin karaa inuuna waa istulee dhinac kale haddii loo dhigo waxaa weeye istulee waa inay gabadhu istuleyso oo fool xumaato sida ninkan madow ee Soomaaliga ah ee caqliga laga haday ee doqonka laga dhigay uuna u kacsan guskiisa si uu u istaagin waa in adigu aad marow weyn xerataayo humbul adala ma fahanti wasa wax kale meesha ma yaalo inankaan fiiri asagu wadaniga hubeysan baa ugu qoran wiilkan dhalinyarada ee ciidanka ku jira asaga qaar baa wuxuu arkaa inuu foolxumo yahay oo gaal ilaahay ka furtay inuu yahay oo dawladda ridada inuu u shaqeeyo labaan u kala qaadaya horta xadiiskan waxaa loo soo diriirsadaa haweenkuna waa inay fahmaan war adinku foolxumo ma tiidin in la suuliyo uma baahnin inaan anagu nala suuliyo uma baahnin waxaan nahay bil aadan waxaan dharka u xiranaa inaan ku labisano waxaan kaloo u xiranaa inaan isku qurxino waxaan kaloo u xiranaa inaan qoraxda ka galno hooy inuu noo noqdo mid haddii aad jirkaagu muddo qaawnaado waxaad yeelanaysaa qolfo way ku adkaanayaan waxaan kaloo dharka loo xirtaa in qabowga laga xirto dharka sababta ay u alifeen bilaadanku in la xirto waxaa weeye waa intaa oo keli ah wax ilaahay ka yimid ama wax ilaahay uu dadka la soo diray ama wax ay dadku ku dhasheen awoodda sare midna ma aha dharku haweenku ma gashtaan inaad adigu kacsan adigu sida lagaa dhaadhacsiiyey waa inaad adiga kacsigaaga ilaalinaa waa boqorad gabadha xijaaban waa boqor af Soomaali waxaa lagu dhahaa waa dad hogaamiye qof ah boqortooyo taasaa la dhahaa boqorad gabdhuhu maahan ma gabdha caadiya bilaadan baa nahay that's it quruxda sida adigu u taqaanid anagu uma naqaan dadku isku qurux ma yaqaanaan isku dooq ma ahan war adigu wadaniga hubeysanow adaa walaalkay oo gaala adigaa gaala tan aan leedahay markii loo fiiriyo al-shabaab adigu gaal baa tahay aniguna gaal baa nahay qofba qof buu gaal u yahay adigu hadda marka waxaa rabtaa qolaa gaal u tahayoo adigu qori kugu raadinaysa baaskoolad qoladaa intaa ka soo jeesatay baa anagu waxba kugu raadinayn oo ku sibood garaynaya oo geeridaada ka naxaya oo gaajadaada la ooyaya oo cudurkaaga la dhibaataysan oo fiirin la maalin walba madaxa lagaa tooganayo baa waxay rabtaa inaad isuulisid waxaa la yidhi doqontu 12 indhood bay leedahay hal il bay ku fiirisaa cadowgeeda 12 kalena qofka jecel oo xigaalka oo dadku ugu xiga gabdhihii daansiyey iyo wiilashii daansiyey ee rabay in nabad la helo ee la rabay colaada in laga baxo ee la rabay in gaajada laga baxo ee la rabay cudurada in la suuliyo baa waxay rabtaa inaad laysid waxaad ka soo jeesatay kii kuu yaqaanay gaalka kii rabay inuu ku dilo kii rabay inuu nafta kaa qaado kii rabay inuu adduunku dhaafiyo kii rabay inuu ku naafeeyo kii ku rabay ilaahay inuu kugu dhawaado waxa oo dhan baad intaad indhaha iyo dhagaha ka soo xiratay walaal macaani baa tiri shareecada bay ka tageen yaa shareeca ku dhaqmada shareeca goormaan ka tagno goorma sabanto oor weligeedba Soomaali shareeca kuma dhaqman
وان كتقنا يا ندينا ما بقى ذنبا شريعة واف عربي أنا وحي لا تاي شريعة وحلا دا دستور أما سي حير صومالي بو معنا وان لنا حير صومالي بو غيركا oo aad hoos tagtid oo qoriga aad u xiran tahay oo darti lagu dilay ka waxa ku qoran baa dalku ku dhaqmaa dadku ku dhaqmayaan ka waxa la dastuur ilaahayna kama imaan odayaal Soomaaliyeed iyo habro Soomaaliyeed baa intee wada fariisteen bay dhaheen dadka waxaanay dantu ugu jirtaa oo buu ku qoran in la kala dambeeyo aan la isdhicid inkastoo aan lagu wada dhaqminba marka dadkan meelahan kala joogana anu meeshan joogalaalo saas oo kale xeer bulshada ay sameysteen baa looga dhaqmaa شريعة ما هو استغو عرب ما هو استغو نين فتودا كديدة يا قميص قبا بالآذن كأن كوها يسمينا بالآذن توقف مذو كوها يستا وأدو سنجري أوجس كوها يستا وقف أنت دير الإفتاجية عرب وبسل كبر جوريا أنا قدي ما هو استغنا ولا بس Soomaaliyeed baan nahay waan soo qaxnay wadamo kale aan imaanay waxaan hoostagnaa dad naftirkooda dadka madoo gumeystay laakiin wax fahmay inay qaldameen dhahay apologies baan ka bixinaynaa حقوق سبني عدالة سبني كجرت دتك بدن كيس وحي كعرر يعني وحا ويه بوغان عاد كل شيء إنسان إنه إلهي كيمد وقف وكجلي وحن كوسو جبين يا ودنا وجبيسنا هذا الكان حديث كان عاد وصود للستان هوينكا ولا الشرمين منهن فول حما منهن إن الأقري وما باهنن حديث كان واشيك عرض إسكني نبض على روض الشقية نبض عليك دنبا كوجرته أنا جنا دنبا يوجرته المهد اللي دوز دنبا يوجرته kuwa uu noqonaysa damba ugu jirta taasi dan ugu jirta waxay dan kugu jirtaa adoo sii jeeda inaan lagu dilin iyo adoo soo jeeda iyo adoo jiifa min nabad inaad ku hargashid anigana waxay dan igu jirtaa sidaas oo kale si dan kugu jirto waxa la yiraahdo wixii umushu dan ugu jirto bay ilmuhuna dan ugu jirtaa marka iskaga tag arrintan wadaad xume u dhigi jiray siyaad bare abisiyaad eebe jannadii hageeye wadaad xume waxa kugu soo qufulay walaal macaan iskaga tag ha gabadhu markay labisan tahay timahan fiiri bas saraha duu jiro oo awood leh dadku waxay dhashaan walaal xayawaanku ayuu qaawan bay dhashaan dhawr bay leeyihiin anaguna waxaan dhalnaa anagu waxba wada bil aadanka ayaa aragtida la imaaday inay timaha mar qarsadaan mar ay banaystaan waxa anagu dhaqan ahaana dumarku waxaan hadda anu aqoon waa kurdad weeye ma aragtaa waa kurdad reeqooyiga xirta reeqoofkana waxay xiran jireen wax la dhaho bahashi guntiino maantay maradan weyn wardhaysa oo foolxumada ayo gabdhihii soo urusayo shiirkeedu urayo carabaabo macaan iska leh qamiiska la isku dhexrido midna madowga yahay midna cadaanka yahay dhaqankeeda maaha annagu waxaan leeyahay wax la dhaho bafto muxuu ahaa magaciisa waa ii goysay waxaan dharkaasaan lahayn cadaanka ayo midna hoosta lagu xirto midna saa loo xirto iyo guntiinada iyo baashan hadda cambuurka bas kurdada timahana dumarka Soomaaliyeed waxay ahayd waa dhaqanka Afrikaankaba badankiisa diimahan madaxan waxa saa loogu duubayo kristanka iyo yahuudiya waxa daanu yahuud banihi kristan banihi muslimiin banihi ma ahayn dadka madow dadkan diima dhaqamo ay lahaayeen way inay qoraxda iyo qabowga iyo waxa ay ka ciida boorka badan ay ka waxaystaan adaw dhaqan baan leh hal gabadha lagu garto meesha faraantiga ayuu ka xirtaan markay guur sameeyaan anagu waxaan lahayn in madaxa lagu xirto gambo waxaan kala lahayn wax la dhaho garbasaar ereyga xijaab oo adu hadda meesha la soo hadaaqayso la soo hindhisayso la soo kuurinayso oo shaqada carabta u soo dirisatay xijaab waxa la dhahaa daa inaan daaxirto daboosho indhaho quruxdayda dado ayaan diidayaa waanigi dhaaye inaan duulo oo dal carbeed tago dahabkay gado dawaafo kabcado dambi dhaaf fursado ayaan diidayaa war anugu carabnimada iyo istulaysiga waxaan u arkaa foolxumo anigu waxaan foolxumo u arkaa inaad adiga lagu dilayo adna aad wax dilaysid laakiin intaad dilkii waxaad joojin lahayd inaad aniga igu soo jeedid iyo gabdhaha haleeda futaa bannaan naas baan arkay naaska waa normal nature weeye haweenku naas bay leeyihiin wayna qurux badan markaa aragta anigoo kale waxaa dhahda very beautiful ka cadeen absolutely si fiican baa u hadashay saa walaalde commentiga loof saar hoos ku soo qor soo qaso gabar qurux badan baa arag
dhaqankeenu intaasaan kusoo celiyaaye gabdhuhu wax lagu faanaayo ee quruxdooda raggu ay dhahaan markay arkaan gabar qurux badan war heedha waxaaba dadku rag dhab iyo ladib waxaan u nahay inuu midba midkeena kala cajabiyo waan marka adiga ku arkaan kule waaw yaa wiil qurux badan baa tahay walaalkay madow irid madow murqo waaweyn oo eebihii ku sameeya baa xumaanka nistaa saynaa ku dhadna saynaa idhaahdi oo dharkaas ku qurxinayn oo ka macawis baad xiranaysaa suud baad xirataa buumaad xirataa markaad dabaalanaysid sirwaal baad xirataa walaalow waxa adiga kuu fasaxay inaad waxaasoo kala duwan xiratid anigana calal aad rabtin ay ugu duuduubtid dee caqligaasu waa laga tegay booga macaan abwaaniintii horena dhaantada iyo ciyaaraha iyo waxaasay ku jirta yaa intaasoo jeer baa soo qaatay fidaashooda horaa ka arkaysaaye haddaan gaga ciyaareen ilaan gabari boodeen waxma dhaanta geeriyaad waa tuhaan raawi lahaa googooska luuqdiiyo gadda sacabka loo tuma hablaha may wuxuu lahaa gu hagaagay oo da-ay dhulka geeda jiifaan haddii geedi lagu furo dhallinyaro iskurataa gudaraac oo waxaa hadda ka argaysa tigtooga dhallinyaro iskurataa gudaraaca fiidkii golo weyn ku kulanto meel iskugu tagta golo weyn ku kulanto googooska luuqdiiyo gadda sacabka loo tuma hablaha u gaaro dee anoo kala dhaya la ya googooska luuq hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kicise haddaan gaga ciyaarin ilaan gabari boodeen gabar ciyaari zab oranin waxma dhaanta geeriyaad raggu maba isku imaadeen adiga hadda hadlayo xanaaqsan waxa tiktok ku keena waa inaad gabar qurux badan aragtid oo qurux badan haddii niman uu ku jir lahay meesha dhihi lahaayeen damaada imaan lahayn ninka daawanaysa nin muxuu leeyahay wax laga daawado ragga anagaa daawana wiilasha quruxda badan yes layga gabdhaha u saara waa laisku baahan yahay anyway walaal macaan waxaan kuleeyahay kusoo gabagabeynayaa cudurka iyo nabadda iyo cudurka iyo colaada raagtay iyo faqriga sida lagu joojin lahaa baan samaynaynaa sida dadka loo dilo ma samaynayna saa inaga daawala saa inaga daa guul baan idiin rajaynayaa meesha igala socota youtube-kaya ka hadhiin nabad ahaado